واحد بانت مصر فاينانس برات سكيلسكي سيد قالها سو كنترول كريس سيد سمي كريس انا قالها سميسو اما قد بدل ما كريس بس كان واحد يوصل دقي مجي لكن waxa baan tahay dhaqaado in soo bilaab karayso inaad bilowdana caadadiis la soo bilowday waxa bilowday saad caado cusub sameysay saad skills ku baran lahayd buugta ka baran lahayd halkan waxa noqonaysa master finance iyo qaybta kaadii finance iyo saad maamul karayso dan marka gaadho sideen qaybta labaad ban galay toban qaybta labaad ugu dhuftay waxa weeye marka waxa baratay skills waxa baratay caado cusub si loo sameeyo waxa baratay maskaxda u shaqeeyo dan waxa u baahan tahay in aad waqtiga lacag ku bixiso waxaan oran karaa intaas oo wajiyo badan dhalinyaro maanta isku timid dabcan waxa aniga igu jiray isbedel doonaya inaan sameeyo way igu sii dhiirigelinaysaa anaa intaas oo qof oo macnaha isbedel rabo waan kana arkay pointiga ugu weyna waa kaa waxaan ka faa'iiday maanta wax la soo qori karo حاولي أنا ما بحب سؤال بيجي عن كل قرية إسباني كوبي يوم كذي عليه واحد ويوم إسرائيلي مرة وحياة أنا بقول مسكحة كده كل حاجة أنا هالكلمة تبع يدور بسيبان كاري وكاري مثل إني أبي أنا بقول كاري لو ما تكستشيل كستوك عن كل عدة مقارنة صار رياض أصيل وكعدون بقى كل أنت كلا سوق عنه وطريقتي مثلا فحرجيني إن شاء الله قعدت النص في السنة أنا ما قاعد أسوي في السنة المستقبل ضمان إن شاء الله وطريقتها بس أنا مرة هنا مليانة حرجيني إن شاء الله dariiqyada imika noo sheegtay noo timaantina inaan qaadno insha Allah badanaa dhalinyarada Soomaaliyeed markii ay tireerada arkaan ama dadka waxa weeyaan barnaamijyaasha motivation ka sameeya waxay isweydiiyaan oo koobaad waxa weeyaan baan ugu faa'iido ka leeyahay waana caqabada koobaad oo qofku celisa hadduu soo qofku isweydiin qofkaan ugu faa'iido ka leeyahay hadduu asagu faa'iidayo meelihiisa ugu koobnaa waayo caqabadaas hadduu ka soo gudbi lahaa kulligan waxaan ahaan lahayn dad waxba fahansan marka anigu saddexda shay maanta meesha aan ka faa'iiday waxa weeyaan horta waqtigaaga oo aad maamusho marka koobaadna aad ogaato inaad waqtigaagii aad iibisay oo aad lacag aad ku bedelayso marka labaadna waxaan ka faa'iiday maadaama aad u baahan tahay inaad isbedel samayso ama aad basta noqoto tabada koobaad ama kaabada koobaad oo fuulaysa inay noqoto horta waxaan hadda aad haysato ee waqti xaadirkan ku soo galaya inaad maalihin markaas xilligan bilaabay saddex wax baan iibsaday aqoon ma lahayn waxa waad aragtay youtube-ka markaad aragtaan xaysiis baa soo gelaya aqoon daraawadeed baan iska dhex jibaaxay wallahi ma fahansanay GoDaddy website-ka la yidhaahdo baan ka iibsaday wixii waliga iibsan waaya bas aan filayay waxaas lahaa waxaas lahaa waxaad muddo yar baad ku noqonaysaa dee qof wax fiican sameeya markaas oo dhawinka la noo labiyo 10 euro iibsaday sida dadka qaar kuwa kale meesha ku iibinaya ay sameeyeen ba waxa ku iibsaday noo labiyo 10 euro waxaan ku iibinay 800 euro marka waxaad ka fahmaysaa inuu yahaa mid laab la kaca aqoon darro awadeed waan iska xiray baarkii maadaama aniga sanad kasta kharash iga baahnaa marka waxaan idinkula talinayaa waxaydaan aqoon u lahayn ha isku dayin inaad maal gashataan